Assalaamu calaykum waraxmatullaahi dhammaantiin waa idin salaamay kusoo dhawaada golahayga yar dhammaantiin waxaan rabay maanta sheeko yar inaan idinka sheekeeyo qurbaha iyo marxaladihiisa. Waxaan idinka digi lahaa horta 5 waxyaabood qurbaha haddii aad ku cusub tahay 5 waxyaabood iska ilaali. Haddii aad iska ilaalisid 5 waxyaabood natiijo wanaagsan baad gaadhaysaa. 5 waxyaabood waxaa weeye tan ugu horeysa waxaa weeye markii aad naftaada aad ku mashquusho waxbarashadaada ku mashquusho ilaahay cibaadadiisa badisid baryada alle badisid meel wanaagsan aad ka soo toosto meel wanaagsanna aad ku hooyato horta ilaahay wuu ku badbaadinayaa. Tan labaad waxaa weeye aanad ummadda maad aragtay aanad ku dhex milmin, waayo dadkan maad aragtay ummadda wax laga faa'iido way badan yihiin. Dad wanaagsan way jiraan, dad xun way jiraan, laakiin dadka xun inaad iska ilaalisid oo noqotid qof fiican naftiisa la socda wanaagiisa la socda maxay ahayday wanaagiisa la socda og meesha uu marayo cidda uu la socdo waxay yihiin iyo waxay galaan iyo waxay gudaan og. Haddii ay waan kaa qaada walaalo, haddii ay dadku maad aragtay ay dad xun yihiin ay adiga maad aragtay mustaqbalkaaga iyo future-kaaga una faa'iido ku lahayn intaad fiirisid inaad iskaga hadhid waddanahaaga ku toostid mar walba waxa aad adigu dadka aad adiga faa'iidada ka helaysid inaad la socotid inaanad la socon dad aan maaragtay tayo lahayn, dad aan waxba qabsanayn, dad aan mustaqbal lahayn, dad aan maad aragtay iyagiiba dee aan meelba isu maaragtay isdhigeen meel qorraxaan joog fadhiyaayo maaragtay qorraxdiiba na hays waan ka soo jeedaa laakiin telefoonkay haysaa haddaan ku jeestana xagga baqayna indhahayga qabato. Marka adigu markaad maad aragtay naftaada aad meel wanaagsan aad maxay ahayday dhigto adigana ilaahay baa ku wanaajinayo wax wanaagsan wax walba kuugu bedelay. Aanad dadka ku dhex milmin, waxaan dantaada ahayn inaanad ku daalin, waxaan danahaaga ahayn inaanad waagu kuugu baryin, iska ilaalisid waxa balwadaha iyo xumaanta iyo maad aragtay waxyaabaha maad aragtay aan nacfiga lahayn adigana ilaahayna kaaga fogaanayo shilinkaaga ku dhammaanayo aan adigana natiijo ku lahayn. Marka waxaan rabay maanta inaan idinka sheekeeyo markaad rabtid adiga inaad meel gaadho runtii qof waliba wuxuu jecel yahay inuu qofkii ku tiirsanaado qof caawiyo mosli noqo adiga qofka maaragtay qofka intuu wax ka barto hadhow toola adigu inaad qabsatid wixii. Laakiin haddaad iska hadlayso oo tiraado ruuxan baa wax ka sugaya ruuxu dooniba ha ahaado, saaxiibka ha noqdo, hooyada ha noqoto, aabaha ha noqdo, walaalka ha noqdo, ninkaaga ha noqdo, naagtaada ha noqoto, wuu dhoofi karaa, wuu dhiman karaa, wax walbaa dhici kara. Hadhow adigii waxaad leedahay warheedhe dee qofkii waa kan uu iiga tegay maxay ahayday aniga faa'iido ii ah. Laakiin haddaad intuu qofku kula joogay aad adigu dadaali lahayd oo wax walba wax ka baran lahayd dee waxaad noqonaysaa qof maad aragtay dependent oo nolosha wax ka bartay oo meel iska soo saara aad noqonaysa. waxaa dhacday beri maalin maalmaha ka mid ah baan waddankan ku cusbaa waan yaraa carruur yaryar baan watay gabadh iga soo horjeeda oo dariskayga carab oo muslina oo aniga markaas facayga baan isbaranay diyaarad baa korkayga socota gabadhii markaan isbaranay sugbal mikrofoonkaan gelinay yaabaa inaad guuxa ka maqli weydaan. Gabadhii markaan isbaranay baa aniga maan aqoonin gaari sida loo wado waddankana aad buu kala fogfog iyo waxaad rabtaa inaad mar walba aad gaari ku soo adeegataad rabtaa
dhakhtarkii inaad ku tagto gaadhi baad u baahan tahay meel walba waxaad rabtaa inaad maxay ahayday dee gaadhi kaga soo qabsato waayo gaadhigu waa shayga keliya aad kaga maarmayso transboorku waxa weeye basaska tagaasida bahaladii muxuu tareemada la raaco marka waqtigii kaa cunaya tareenka iyo basku taxina maba awoodidba maba goyn kartidba maba ka bixi kartid marka waxaan damcay inaan aniga maxay ahayday gaadhi barto gabadha mar walba gaadhigeedaan qaadan jirno waxaan dhihi jiray kaalameeshanige way kaxayn jirtay meeshaan rabo way igeyn jirtay because waxba may haynin laba ciyaalo sidaydoo kale iyadana lahayd meel walba way igeyn jirtay oo iga soo qaadi jirtay way igeyn jirtay maalintii dambaa waxaa dhacday labadayadiiba waxa lana siiyey laba guri oo kala fog baan aan helnay oon u kala guurnay labadii guri markaan u kala guurnay siin ma jirto laakiin guri baa dee wadanka guryaha markaad guri rabtid inaad ijaarato waa inaad application buuxiso ood xeraysato haddii kale ma helaysid guri applicationka markaad buuxiso haddii shuruudaha lagaaga baahan yahay aad buuxiso guriga wuu kuu soo baxayaa gurigii baa noo soo baxay application baan buuxinay waxaan xeraysanay isku eriyo ilaaha amarkii laba meelood kala fog bay guryo nooga soo kala baxeen annagana markaa mustacajil baan ahayn labadeennaba waxaan rabnay inaan guurno waan guurnay markaan guurnay aniga markaa waxaan soo qaatay sharciga yar ee gaadhiga lagu barto mid yar iyo waxaa jira mid weyn kan yar waa inuu qof geeska kuu fadhiyo kan weynna dadkaan aqoonin dadka wadamadii qurbaha jooga way yaqaanin kan yarna waa inuu qof geeska kuu fadhiyo kan weynna waa inaad adiga keligaa wadatid kii weynaa ma soo qaadanin wuuna ii ballansan yahay aydanno baashanaa si fiican codkayga u maqlaysin ii soo qora haddii aydaan si fiican ii maqlaynin waxaa dhacday markaa meel cidlaa inaan iska daldalmo ma rabe waxaa dhacday markaas waxaa dhacday kii weynaa baa ii ballansanaa waxaa ii ballantii baa la gaadhay gabadhii way guurto meel fog bay u guurto waxaan rabaa marka inay inta ii timaado gaadhina waan gat gaadhiga intay igu kaxayso inay meeshii ii geysaan raba gabadhana waa ii jaakaraysaa aniga waxay leedahay tan wallaahi aad bay iiga naxaysay because gabadha aad ii jecel bay ahayd because qofka maad aragtay innagu waxaynu moodnaa qofku markuu waxba kuu qaban waayo inuu ku necabiyaynu moodna oo intuu adi wax ku siinaya ama wax kuu qabanayo inuu ku jecel yahay laakiin saa maaha runtii waxaa weeye qofka ku jecel waa qofka aan waxba ku siinin waxbana mar intuu ku caawini laakiin inuuna si joogtaa kuu caawinin oo jecel inaad adiga wax qabsatood meel iska soo saarto qofkaasaa la yidhaahdo wii caawiye bas marka waxaa dhacday ballantii baa la gaadhay gabadhii baan wacay waxaan ku yidhi maxay ahayday berri 8 subaxnimo baan ballantii leh hadri 8 subaxnimaad leedahay haa hayo waaye waan ku iman 8 subaxnimo waxaan ku iman 7 barhka istiyaari ani waan kacay salaadii subax markaan tukadayba 6 waan istiyaariyey gabadhii 7 markii la gaaray oo ii jaakiraysa bay soo wacday waxay ku tiri gabadhay dhegeyso waa 7 meeshan waxaa loo soconayaa 40 daqiiqo 20 daqiiqo kalena waa intaad xafiiska joogtay warqadahaaga iyo waxaaga dadka tutusayso ee la diyaar garoobay aniga ma ku iman kara haddaan xaafadayda ka soo dhaqaaqo waxay qaadanaysaa saacad barhkeed waa inaad gaariga isku daydid inaad soo dhaqaajiso meel dhexe iskugu imaano roob waxaa da-aya bismillaahi raxmaan raxiim weynankiisa aad yaab iyo ama kaagu dhimanaysaa gawdahayoo da-aya ceeryaamadan iska daa warkeeda waa isqaris gaarigii baan qaatay furihii baan ku rogay qowlka ilaahan afkaska haystay oon ilaahay iska baryayay waxaan wallaahi tan maanta waxay rabtaa inay shil ku geliso way kuu dhammaatay ma kansashaa ma ku socotaa midda kale gaarigan aan gat badanaa iyada ay igu wadi jirtayo waxyaaba badan oonan ka aqoonin baa jira bal inta ila socotay gaariga ii saarnayd gaariga anigaa lahaay
maxaan uga baran waaye unu dhihi waaye halkan maxay tahay halkan kale maxay tahay ma aan dhihin gaadhigii baan furaha ku rogay waan dhaqaajiyey laa ilaaha ila allah maxamed rasuulallah dasaanu hayan gaadhigii u waday adi meeshii baan gaadhay 20 daqiiqa ii dhiman meel fog baan istaagay because hadday gaadhiga igu arkaan qolada aan u tegayo lama ogola inaan gaadhi keligee wato iyada xafiiska iga horeysa waxay rabtaa inay iska dhigto inay iyadu gaadhiga wadin meel agtiisa igu sugaysa igu soo baxda markaasay tiri hey assalaamu calaykum markaasaan naaya xaasidadii masaasaad ii gashay cadho anitii ugu dambaysa waaban cadhaysanahay ilaan iyadana khidad bay wadataayo waxay leedahay gabadhani meelahaas ka soo saarto bas meeshii gaadhigii baa furihii anigii ninkii aan ballanta lalahaa ku rognay waan dhaqaajinay waan ku soo baasay laysankii baan soo qaatay markaan laysanka soo qaatay way sii sugaysay meesha xafiiska igu sugaysay waxay igu tiri maxaad dareemaysaa waxaan ku yidhi alxamdulilah waan ka araystay kasaad baan u cadhaysanahay waxay tiri igamaad raysanin laakiin anigu tan waan kuugu talagalay waan ku dhiirigelinaya xaaslaa maanta markay laysanka soo qaadato berri gaadhiga ayaa ku kaxayna ku wadi doona xabsidaan rabay inay ka abaado ilaa al'aana maanta dhow wax laga soo wareegay wax badan ilaa al'aana gabadha waa u duceeyaa because waxaa ugu duceeyaa dhiirigelinta ay dhiirigelisiyo dhiiranaanta is laakiin maalintaa maan fahansanayn waxaan islahaa war qoftan waaba cadowba laakiin qofkani marka uu ku leeyahy war wax qabso adiguu rabaa inaad wax noqotid hadda wiilasha qaarkood markay aabbayaashood baryaanay dhahaan aabba lacag isii aabbayaasha caqliga badani ma siiyaan wiilashooda lacag waxay ku dhahaan wariyaax ma kuu sheega haa ani intaada markaan leeka waxbaan qabsan jiro orodoo wax qabso because maxay rabaan inuu wiilkaasi intuu meel iska soo saaro isagoo yar uu nin raga noqdo oo maad aragtay noqdo inuu meel iska soo saaro ayuu rabaa marka weligiin maad aragtay qof asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا في عنا ولا الحمد لله سو دhowow marka qof weligiin haddaad isleedihiin qof aad isleedihiin weligiin muxuu wax kuu siin waaye muxuu wax kuu dhihi waaye waa qof adiga raba maad aragtay inuu meelkaas